Waxaa saaka magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ka dhacay mudaharaad ballaaran oo lagaga soo horjeedo mabda'a Khaatumo. Mudaharaadkan oo ay soo abaabuleen bahda isboortiga Buuhoodle. Mudaharaadkan ayaa ku soo beegmayay xilli kuwa ka tirsan mabda'a Khaatumo ay garoonka kubadda cagta ee Xabado Stadium ay birtii kala baxeen. Sidaa darteedna ay isboortigu ku mudaharaadeen qoladaasi Khaatumo, waxayna ku dhawaaqayeen ma rabno Khaatumo. Waxa ayna dhaheen sida tan. ugu dambeyntiina bahda isboortiga ayaa ku hanjabay in mudaharaadka ay sii wadi doonaan oo weliba ay waxyeelo ka dhici doonto magaalada. Waa sida ay hadalkooda u dhigeen. Cabsaaq Maxamed Cumar, kalsharenews.com, Buuhoodle.